dabcan waxaan wareysan doonaa labada kabtan ee kala wata labada kooxood ee fanaaniinta iyo waliba wariyaasha oo dabcan maanta wada ciyaaraya kulan isdhaxgal ah ugu horeyn dulyar ayaan ku bilaabayaa bal dulyar sidaad u aragtaa kulankan aad iyo aad waa mahadsan tahay kulankan kulan qiimo badan way runtii waana kulan saxafiyiinta iyo u dhaxeeya fanaaniinta waana kulan isdhaxgalka bulshada waana kulan aan ugu talagalnay in arrimaha nabadda iyo dibulsiinta iyo saaxiibtinimada iyo soo dhaweynta ay ka qayb qaataan nimaana saaxiibkay ayaa hadda tiimka kala wata runtii waa kulan aad u qiimo badan oo jeclaan lahaa waliba in sidaa loo joogteeyo kooxa looga dhigo haddii aan lahayn xataa dumarka laftirkooda inay markooda cayaaraan waata waa maasantaa dulyar markana labadiisa kalaan iyo waliba fanaanka nimcaan hilaac bismillaahir rahmaanir rahiim run ahaantii kulankan maanta waa kulan aad iyo aad u qiimo badan in muddaana aanu qabanqaabinaynay waxaan ugu talagalnay barnaamijyada isdhexgalka bulshada ama barnaamijka nabad iyo nolol run ahaantii waxaanu ku tala jirnay inaanu joogtayno kulanada noocan ah waata aad baad mahadsantii dulyar iyo nimcaan hilaac ciyaarta ayaan gudagalayn maadaama ciyaarta xiisadeeda la wada sugayo ahaanteeda bal aan aragna qadarkeeya waxa uu ku soo kordhiyay ciyaarta xilli badal lagu sameeyay shaawe gool waa tahay waxa uu dhaliyay xidiga la yiraahdo xasaasi oo kamid ah laacibiinta matalaya saxafiyiinta Soomaaliyeed gool aad u qurux badan waliba هاتاي كوبادي بنكا عدنا واي بلاوتي gool iyo eber daawadayaal wariyaasha ayaa dabcan goolkaasi helay fanaaniinta qadarkeeyo ayaa iminka ku soo biiray oo badal ku soo galay xilli badal lagu sameeyay shaawe oo kamid ahaa weeraryahanada matalaya fanaaniinta Soomaaliyeed kubadda ayaa lagu celinaya kubadda aad u qurux badan ogaa kubaddaasi waxa baasay Shaafici waliba saxafiyiinta waatan kubaddii dabcan waxa uu baasay numberka 5 ee xidiga matalaya fanaaniinta Umar Gaxtaani ayaana goolkaasi dhaliyay ka saddexaad ahna matalaya dabcan wariyaasha Soomaaliyeed habeysane waata qadarkeeyo ayaa gool u dhaliyay oh my god طبعا وحاول سعدي ودبالدق aan inta caadiyeen bal ii casay kobaha la lugta bal tirtira ayaa ka dhacday wax heesayad maad oo gabdhaha Soomaaliyeed ama yarta way shidan tahay yarku way shidan yahay in loo qaado inaba caadimay sidii kubad inta ku taagsaday arag dabaaldeq arag wooba yasabi ciyaartooydan ha isma wax celiye ma lahan ayuu yiri qadarkeeyo inaba laaciban caadiyeen tahay geesaska ayuu eegay qadarkeeyo waxa idin qaadina kubadii qabiyowday marka hal laba ayraade daawadayaal ay noqotay ciyaarta waxaan u dhaliyay kooxda wariyaasha laacibka kooxda dekada ee Atoosh marka Saacdi ka waran ciyaartu waxay noqotay hal laba barbara marka yaa loo qaadi doonaa hees maanta bal isleeda kubad la iskaga daw imaanaya maanta labada waxaan wariyaashanahay فنان وحده يوم قلين ورياشان تاجرسناهاي waa naga dhaliyeen fashil.com waaye laakiin waxa waay anigu wariyaashan taageersanahay mar waliba ama boodboodaan saaxiibada kale iyo saaxiibadii shaawi watay iyo nimcaan iyo askar ciyaaraan laakiin waa badinaynaa oo anigu waxaan taageersanahay galabta wariyaasha ciyaarayaan taageersanahay walaal xidigii dhankoosa asaa sheegtaba uu garabada ka maqan yahay dhakoosow hal su'aal ayaan ku weydiinaya markaad mikrofoonka qabsatay oo aad tiri waxaan taageersanahay wariyaasha gool ayaa lagu soo dhaweeyay marka adigana waa ka maqantaa oo dhaawac ayaa ugu maqantaa galabta taasoo lama oran karo ciyaaryahankan waa ciyaaryahan shirtiisa sida hore u sheegtan waa Messi waa sida nimcaan waa kubad abuure dhaliye dabcan iminkana kubad ayaa u suran uu tuuri doona sidii muuqata laad xora nimcaan hilaac جول نمعان هلا جول يودني نمعان عبد الرحمن حسين لا وشافي وصل الشيء بوليسيون جول أكو أنا يكلنا نمعان عبد الرحمن حسين قدر كيو وشرياش دبالدق أكو أنا يوصلنا وينشي ورياشي سعدي وما أنتوا والله قلتمنا يا ورياشي والله قلتمنا يا نمعان عبد الرحمن حسين لا
dabaaldeg aad u wacnay oo qabiilkiisa nimca ka waran waa sidaa sheeg dardar aad u wacnay oo la soo galay waa meesigaas kooxda wariyaasha goolahayaha xulka qaranka ayuuna ka dhili gool aad u wacan waa tahay daawadayaal sidaad arkayseen ciyaartii quruxda badneed waa ay soo gabagabowday una dhexaysay fanaaniinta Soomaaliyeed iyo waliba saxafiyiinta bal markan Sacdiya ayaa garab taagan kana mid ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed oo taageeraya maanta oo halkan u yimid in ay taageeraan fanaaniinta Soomaaliyeed bal Sacdiya maxaad ka dhaysaa ciyaartii quruxda badneed ee dabcan guusha ay raacday fanaaniinta سعدية ورت ما شاء الله قلبت فرحتي إذا لما سو كوبي كر أدبان وفرح سنة درين كي ما أنت وحنا قياسه ملهن ما دام فنانينتي أنت غير يعني وأنا جم مجعيني وتي مجعي فناني ماذا وكل ما شاء الله أدبان وفرح سنة هاي ويرش أو ورياش أجن سوق كلا وأمي هاد علنا يا عيارتن أو ما شاء الله قروح بدن يسوق بقابيل سوق بقابيل وحنا وأمي هاد علنا يا لكن قلبت أدبان وفرح سنة جوش الوالجاري والسعدية مركي كوجو رسمية هاي أو عاد فنانين عاد سيدان أو كلا عادو تاجرتو عاد قرن وما تدرتو ده ومالك يجوا وريدي أن إمادة مال بنوني لو عياراي وحنو ما سو دير جلسي وحتاي ما دام فنانين تعيارت كجرن ده ما فدي ما بيالا بقى وأنا صعبت ما واتها بل سعديو ما واحد دي لهاي فكرة أهان كلن كان هلا بديو ومحن كير هذا إن بدن هلو سوء العليم يعطيه لهاي مسائل كلن كان كليه لو كل تجعل هذا أي ماشي لو كل تجعل ما حتى وحن شعلالها كبد كله يقول كلا قبلها فنانين تي قبلها ورياش إن لو ترسيو أنا وكلا بنسنا هذه وكلا سعدية وقبلتنا يا مدام تمديات هاي هذا نقول فرح سنة ولا شيء قالية وتعاد بعض ما سنتها سعدية سمن طبعا فنانين تايان جودهان ورسم دونا إن مركن واتهاي داوديال مركنا فنان كوين محمد طبلنا ayaa hor taagan maxamed طبلنا bal dareenka ka waran maadaama aad kamid ah taageerayaasha fanaaniinta oo aad adiguna tahay fanaan weyn wallahi maanta dareenkayga ma qiyaasi karo waxa way fanaaniinta kaalin weyn ay buuxiyeen maanta aad u faraxsanahay maanta aad u faraxsanahay waxa meesha waxay keentay farxad waa insha Allah guulaana kala tagaa bal adigu xidigaha ka maqan ayaad ku jirtay fanaaniinta ma dhaawac baad kaga maqneed ma sacabsi mid uu noo sheeg ma ana xogaa dhaawaca kaga maqnaa laakiin qalbiga ka ciyaaraya waa tahay aad baad u mahadsan tahay fanaanka weyn ee maxamed tobanle daawadayaal waxaan ku guda jirnaa ciyaartii xiisaha badneed ee u dhaxaysay fanaaniinta Soomaaliyeed iyo waliba saxafiyiinta goordhow waxaa la bixin doonaa bilado oo dabcan loogu talagalay xidigaha iyo waliba kooxda labada dhinac ee kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad شابله oo kamid ahaa fanaaniin aan iraade wariyaasha Soomaaliyeed ee dabcan ciyaaraya kulankan bal shaable sidaad u aragtaa natiijada ciyaarta ay ku soo idlaatay yes good game sababtoo ah kulankii ugu horeeyay oo labada ciyaaro waan ku faraxsanahay walaa natiijada ka soo baxday si wacan aan u ciyaarnay kooxdii wana u qalantiinay badisay ayaa badisay Soomaalidu waxay tiraahdaa labada bir isku dhacda mid baa jabta ama labada dhex isku mid baa jabta marka waan ku faraxsanahay ciyaarta waxay ku dhamaatay waa tahay shaable aad baad u mahadsantahay daawada
soo dhaweeyay inay guusha qaadaan oo tiimka labaad ah second choice galay waxaan ku soo dhaweynaynaa kabtan Muday soo dhawo kabtan وعنكي هلا كلا وعن هلا وريا حق دور سحونا نيجل ورقدين اسك قرقرتا ماشيين فدينا وريستا وايدين ما هنا تشاو عبد الفتاح شاوي يا هرتاغني منك او اها ويرريهان متليا فنانينta Soomaaliyeed hadi عبد الفتاح galabta aad baan u faraxsanahay maadaama aan saxaafadda oo idil aan ka badinay ayagoo noo soo watay seer aan noo soo watay horyaalka qaranka ka dheela inaan ka badino sharaf bay noo tahay anoo matalay fanaaniinta Soomaaliyeed iyo dhalinyarta Soomaaliyeed magaaladan ku nool waxaa sharaf noo ah inaan koobka ka qaadno saxaafadda idil oo dhan oo maanta isugu timid halkan iyagoo seer aadooda soo watay واتاي aad baad u mahadsantahay عبد الفتاح intii tooska idinkaga imaanaysay garoonka weyn ee Toya Stadium una dhaxaysay ciyaartii xiisaha badneed fanaaniinta Soomaaliyeed iyo waliba saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaan intaasi ku soo xireynaa